بسم الله الرحمن الرحيم akhyaarta ku xiran kanaalkeena waxaa kusoo dhawaataan cashar cusub oo ku saabsan ChatGPT-ga ama waxaan la yiraahdo artificial intelligence-ga AI-ga cashar ku saabsan ayaan doonayaa maanta inaan la wadaago iyo ChatGPT-ga ama artificial intelligence-ga waxaa la yiraahdaa muhiimadda uu leeyahay dunidan aynu maanta joogno qarnigan 21aad dunidu way isbedeshay tiknoolajiyadu aad bay u balaaratay maalinba wax cusub baa soo kordhaya sidaa darteed waxaan doonayaa bal in aad idinkuna aad noqotaan dad commitment ku ah inaad waqti gelisaan tiknoolajiyada xaaladaha tiknoolajiyadu halkay marayaan runtii abkan la yiraahdo artificial intelligence ama platformkan la yiraahdo artificial intelligence ama ChatGPT waa platform soo baxay 2022 ayuu hawada soo galay oo dunida ku soo kordhay inta badan artificial intelligence-gani waa af Soomaali marka loo bedelo waa maskaxdii macmalka ahayd waa wax u shaqeynaya sidii qof bini aadan oo kala shaqadii qofka bini aadanka uu qabanayo dhan buu ku qabanaya marka waxani waa wax as a computerized waa server meel yaala oo dhammaan any kind of aqoon kastoo dunida taalla iyo wax kastoo u baahato taallaba lagu shubay oo la geliyay way serverka dabeetana shaqadii qofka bini aadanka ku qabanayay ayuu ku qabanaya waxa la yiraahdo ChatGPT artificial intelligence marka artificial intelligence waxaanu leenahay artificial intelligence waxyaabo ugu muhiimsan buu ka mid yahay ee maanta dunida la isticmaalo qiimeyn fara badan iyo riboodyo badan oo la soo saaray waxa la sheegay in sanadkii cidda website-ka dadka booqda ee wax ka raadiya ay yihiin dad 1 milyan kor u dhaafaya 1 milyan bay yihiin dad sanadkii iyo bishii oo qura ayaa sometimes mararka qaarkood la yiraahdaa inay 2 milyan gaadhaanba bishii oo qura ayaa laga yaabaa inay gaadhaan dadka software-ka booqda 1 milyan and above sanadkiina bal maxaad malaynaysaa sidaa darteed halka waxaad ka garanaysaa software-kan iyo platform-kan inuu yahay platform aad u ballaaran oo muhiim ah qof kastana anfacaya hadduu yahay qof ganacsada arday macallin wax cid walbaba title-kay doonto iyo darajadii doonto haysatee ayuu anfacaya sidaa darteed waxaan doonayaa bal aniga laftayda waan isticmaalay ChatGPT-gan oo waxyaabaha ugu badan isticmaalu ka mid yahay sidaa darteed maanta waxaan doonayaa inaan la wadaago muhiimadda uu leeyahay ChatGPT-gu iyo bal sida uu idin anfacayo ayaan doonayaa akhyaaray idaan idinla wadaago haddaba bal waxaanu isku yara daraynaa bal ChatGPT-gu muxuu muhiimad leh importance-giisa maxaa ka mid noqon kara importance muhiimad muxuu yeelan karaa importance-giisa waxa ka mid ah ama muhiimadiisa ama advantage-giisa waxyaabo badan buu kuu fududeynaya for example haddii marka hore oo kale aad cashar oo kale markaad doonayso inaad internetka ka raadiso ay waqti badan kugu qaadanaysa markaad tahay qof ardaya ChatGPT-gani wax badan buu kaa caawinayaa shaqadii waqtiga badan kaa qaadanaysay ayuu kuu soo koobayaa wixii aad waqtiga badan ku raadinaysay time-ka badan kaa lumayay isagu kuu soo koobayaa waqti kooban ayaad ku helaysaa wixii oo dhan sidaa darteed ChatGPT-gu muhiimadaasa ka mid ah waxyaabaha kale ka mid ah waxaa ka mid ah inuu yahay wax any kind aqoon kastood u baahatana waad ka helaysaa sometimes maskaxdaada iyo aqoontaada kor u qaadaya oo u dhisaya garaadkaagu kobcinaya runtii faa'iidooyinkiisu aad bay u ballaaran yihiin haddaba bal waynu idin tusayaa practically baan idinku tusayaa ChatGPT-gan sidaa darteed la socosho wanaagsan okay akhyaarta ku xiran kanaalkeena marka ugu horeysa si aad markaad doonayso ChatGPT-ga marka ugu horeysa browser-kaaga soo kicinaysaa ama Google Chrome-kaaga dabeetana halkaa waxaad ku qoraysaa Google-ka waxaad ka raadinaysaa maxay ChatGPT baad ka raadinay waxaad ku qoraysaa ChatGPT waka kaasaad ku qoraysaa wuu kuu soo baxaya ChatGPT markaad saa ugu raadiso website-ka ugu horeeya ama address-ka ugu horeeya ayaad click dhahaysaa oo ku dhufanaysaa kaas website-kii saxda ah ee ah www.chatgpt.com website-kaasaad ku dhufanaysaa saa markaad ku dhufato saa markuu kugu soo baxo aynu gudaha u galno isla markiiba daaqada yar buu inoo soo saaraya daaqada yar waxa weeye inaynu iska diiwaan gelino يعني وحي سينو استعماله ويب سايت كي سينو استعماله اما اب كي سينو استعماله ده وين نستوان قلنا وين
shirkaddan ChatGPT dee waa inaynu aqoonsadaan ciddaynu nahay waa inay gartaan sidaa darteed waa inaynu isdiiwaan gelinaa marka ugu horreysa login in baad leedahay ma login in ama account cusub haddaadan hore u isticmaali jirin account laba option buu ina kala siinayaa labada option mid waxaa la yidhahdaa login in midna waxa weeye create free account sidaa darteed haddii aad hore u isticmaali jirin platformkan create account cusub baad samaysanaysaa account cusub baad ka dhex samaysana haddii aad hore u isticmaali jirtana login in baad dahaysaa anuu markaa iminka idinkaas saan idiin tuso mid cusub baad ka samaysanaysaa sidaa darteed ama login in baad dahaysaa oo haddaad iska daysana login inna waad dihi kartaa sidaa darteed haddaynu iminka dhahno login haddaan iminka idin tuso dhaho create free account cusub baan ka samaysanaynaa account cusub markaad ka samaysanayso halkaa waxaad gelinaysaa maxay gmailkaaga gelini your gmail si kale aad u gelin kartaa gmailkaaga oo google-kaagaad ku xidhiidhana google account-kaagaad ku xidhiidhsanaysaa sidaa darteed google account-kaaga ayaa aad gelinay si fiican baa layla socdaa waan malinaya akoonnadaada mid ka mid a account-kaaga soo dooranaysaa account gmail-kaaga soo dooranay waad gelinay aniguna account-kaygaan doortay adiguna hadhow account-kaaga soo dooranaysaa dabeetana continue waad leedahay okay daaqadan buu inoo soo saarayaa account gmailkeeni markaynu gelinay wuxuu yidhi tell us about you waxaad noo sheegtaa buu yidhi wax adiga kugu saabsan magacaagii baad gelinaysaa halkaa saxda ahaa birthday xilliga aad dhalatay ayaad halka ku qoray xilliga aan dhalanay ayaan ku qoranaa for example oo kale waxaan dhalay intaa iyo intaas dabadeetana agree baad leedahay okay intaa kadib waxaad aragtaan akhyaarta ku xidhan kanaalkeena in account-kii aynu ka samaysanay ChatGPT ama artificial intelligence platformkii waynu iska diiwaan gelinay account-kii waynu ka samaysanay halkaa waxaad aragtaan waxay noo soo baxday h oo micnaheedu tahay inaynu account ka samaysanay platformkan hadhowto haddaad doonayso account-kan inaad kaga baxdo log out baad dhihi kartaa haddaad doonayso platformkaagan ama account-kaagan meeshaad ka maamuli kartaa waa settings halkaasaad dhigi kartaa waa settingska meeshaad ka maamulayso weeye account-kaaga intaa kadib haddaba su-aasha isweydiinta le waxa weeye sidee baa loo isticmaalayaa taasaan doonayaa inaan maanta idin fahamsiiyo oo videogeenana uu ku saabsan yahay nuxurka videogeenani laba qodob buu ku saabsanaa midi waxa weeye inaan ku baro qaabka la iskaga diiwaan geliyo ChatGPT ama platformkan iyo qaabka loo isticmaalo sidaa darteed stepkii labaad ee ugu dambeeyay baynu geli doonaa oo ah sida loo isticmaalo waxa weeye halkan waxaad ka raadinaysaa any kind of your want wax kasta oo su-aale ood qabtaad raadinay for example oo kale halkaas su-aal buu ina weydiiyey wuxuu yidhi what can I help you with sideebaad doonaysaa inaan kuu caawiyo qaabkaad doonaysaa inaan kuu caawiyo maxaan kaa caawiyaa wey maxaad doonaysaa inaan kaa caawiyo ii sheeg for example oo kale su-aal baad weydiinaysa waxaad leedahay waxaad leedahay different su-aal baad weydiinaysa waxaad leedahay tell me please intaasaynu for example oo kale ka raadin karnaa tusaalaha waa the minimum of the example waa tusaalaha ugu yar aynu ka raadin karno su-aashaasaynu weydiinay waxaan idhi waxaad ii sheegtaa bal differencega u dhexeeya adoo soo koobaya tell me please ii sheeg si kooban brief tell me briefly si kooban iigu sheeg fadlan difference between Facebook platform and YouTube labadan platform ee YouTube-ka iyo Facebook-ga difference intee leeg baa u dhexeeya bal fahamsii difference-gaas inoo sheegaya u dhexeeya by text qoraal buu inoogu sheegaya wuxuu leeyahay YouTube-kana difference-gaas u dhexeyn doona Facebook-gana YouTube-kana difference Facebook-gana saas waa kan qoraalka inta leeg buu inoo qoray qoraalkan buu ina siiyey wadi ka arkaya halkaa ugu horreysa wuxuu sheegay Facebook buu ugu horreysiyey wuxuu yidhi Facebook and YouTube wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan are both social media labadooduba waa social media platforms bay ka mid yihiin
but laakiin serve distinct purposes and experiences labadoodu laakiin kala duwanaansho iyo bay leeyihiin khibrado ballaaran ayay leeyihiin labaduba way aynu ku horeyna ee content fox YouTube ko kale preliminary video sharing platform and content users and upload baa la geliya inta badan buu yiri YouTube waxa loo isticmaalaa in videoyo iyo wax la soo gelgeliyo for example kale in dad badan isticmaalaan inaad video u isticmaasho waxyaalahaas aad isticmaali kartaa buu yiri laakiin Facebook oo kale waxaad u isticmaali kartaa a social networking platform buu yiri waa platform ballaaran oo bulsho badan isku xidha noocyo badan loo isticmaalo text image video and events wax kastana waa soo gelin kartaa buu waad isticmaali kartaa videoyada u gelin kartaa text sawiro intaba waad u isticmaali kartaa laakiin YouTube ko kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay marka halka waxaad ka arki kartaan inuu difference badan la siinayo marka imika eeg macluumaadka inta leeg ee uu ina siiyay labada qura ma weydiin kartid wax kasta oo u baahan tahay waad ka raadin kartaa oo waa aad weydiin kartaa haddaan dhahno imika for example oo kale aynu weydiino tell me advantage about tell me advantage about education dynamic education bal ii sheeg faa'iidooyinka ay waxbarashadu leedahay haddaan ku dhaho imika wuu ina siinayaa tell me advantage about education baan weydiiyey moogta waxaan ku yidhi bal waxbarashada iyo faa'iidadeeda bal wax iga waran bal wax iga sheeg halkaas aad arkaysaanba wuxuuna siiyey bullets qodobo points buu ina siiyey faa'iidooyinka ah waxbarashada ay leedahay wuxuu ku leeyahay personal development buu ku leeyahay bay leedahay faa'iidooyinka waxbarashada waxa ka mid ah buu yidhi personal shakhsiyan baad koraysaa buu ku leeyahay shakhsi ahaan baad horumaray oo koraysaa sidoo kale career opportunities bay leedahay fursadana way leedahay buu yidhi social economic impact saameyn bulsho iyo mid dhaqaalana way leedahay haddaba leeg improve quality of life waxay kor u qaadaysaa buu ku leeyahay heerkaaga nololeedna kor bay u qaadaysaa empowerment and equality kalsoonina waad helaysaa empowerment qof kalsoonina waad helaysaa sidaa darteed faa'iidooyinkaas oo dhan bay leedahay buu ku leeyahay iyo qaar kaloo badan halkaa maxaad ka dareemi kartaan ChatGPT-gu inuu yahay macluumaad aad u muhiim ah sidaa darteed haddaba waniga idin tusay qaabka loo isticmaalo ChatGPT idinkuna bal isku daydaya iska diiwaangeliya isticmaala wax aad u muhiim ah weeye wax badan buu idinka caafaya aqoon badan baad ka faa'iidaysaan wax badan buu idin kordhinaya aqoontiina kor u qaadaya runtii waa aad buu u muhiim yahay run ahaantii intaas ayaan maanta doonaya inaan la wadaago ChatGPT-ganuna laba qayboodna uu leeyahay oo qayb lacagana uu leeyahay oo iyo qayb bilaasha qayb free ah iyo qayb lacaga uu leeyahay labadaba haddaad u baahan tahay waad isticmaali kartaa inahaas ayaa aan maanta aynu kusoo gabagabeynaynaa insha allahu tacaala fadlan isku daya oo ka faa'iidaysta platformkan fiican ee ChatGPT-gu waa platform aad u wanaagsan oo qof kasta anfacaya runtiina dunidu iminka waxa ugu badan la isticmaalaa waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay Soomaalideenu laakiin inta badan aad uma isticmaalaan dadkeenu waska waxaan micno badan lahayn bay ku mashquulsan yihiin laakiin dunida kale waxyaabaha ugu badan la isticmaalay bay ka mid yihiin sidaa darteed isku daya oo ka faa'iidaysta ardaydu wixii arday ahaan u isticmaalaysa ardayda waa anfacaya shaqaalaha waa anfacaya cid kasta waa anfacaya oo ka faa'iidaysanaysa sidaa darteed isku daya oo ka faa'iidaysta waa aad mahadsantihiin